maxamed xuseen meedhane maayirka magaalada Boorama ayaa maanta kulan warbaahineed gudaha magaaladani Boorama uu ku qabtay waxa uu kaga waramay cashuuro ay kordhiyeen muddooyinkii ugu dambeysay kuwaas uu ku sheegay cashuurta ay kordhiyeen ayaa maayir meedhane uu ku sheegay kuwa horumarka degmada kor u qaadaya taasina ay tahay sababta ay u doorbideen inay waqtigan cashuurta kor u qaadaan waa kan maayir meedhane oo murtaasi ka hadlayay waxa laga cabanayay waa cashuur la'aana dawladii ma dhisanto dadweynaha waxaan u sheegaynaa in cashuurta bixiyaan cashuurta waxa laga shaqeeyaa amnigooda iyo horumarkooda iyo ganacsatada iyadoo mahad celinayno run ahaantii warshadaha biyaha soo saara ama sharaabkana waan isku nimadnay si fiican baan isku afkaranay in cashuurta bixiyaanna oo inala qaateen cashuurtan ay kor u qaaday dawladda hoose magaalada Boorama ayaa waxay ku soo beegmaysaa waqti loo diyaar garoobayo in wadooyin iyo jidad cusub laga dhiso gudaha magaaladani Boorama oo guud ahaanba noqdo kuwa isku xidha xaafadaha kala duwan iyo degmooyinka magaaladani Boorama ay ka kooban tahay waa Hurri Axmed oo TV-ga caalamiga Honkeyban magaalada Boorama.